السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka oo caawa aan idinku hayno qodobo aad u xiiso badan oo kala duwan barnaamijka caawa waxaan ku soo qaadanaynaa qodobkeena ugu horeeya baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay horgeysay xeerka ilaalinta deegaanka iyo waliba maareynta waxaa hadda stuudiyaha igula sugan oo aan ka wareysan doonaa arrimahaasi wasiirka deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Caydiid Salebaan Xaashi wasiir ku soo dhawow marka hore barnaamijka falanqaynta wararka bal waxaad nooga warbixisaa adoo maanta baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland hor joogay xeerkan ilaalinta deegaanka iyo sidoo uu ilaalinayo deegaanka looguna maamulayo arrimaha deegaanka bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay Toronto xeerka maanta golaha sharci dejinta ee Jubbaland ay ansixiyeen waxa la yiraahdaa xeerka ilaalinta iyo maareynta deegaanka ee Jubbaland wuxuu soo maray process waqtina waa laga soo shaqeynayay wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska ee Jubbaland marka waxay maanta sharaf u ahayd in baarlamaanka aan horgeyno xeerkii ilaalinta iyo maareynta deegaanka xeerkani waa qoraalkii koowaad oo hadda innaga Jubbaland ahaan la diyaariyo baarlamaankuna ansixiyo golaha wasiirada hore loo soo mariyay waxaa ka soo shaqeeyay aqoon-yahano wasaaradda iyo sharci yaqaano dhammaan waanu mahad celinayaa dadkii gacanta ka geystay xeerkaas ee soo gaarsiiyay maanta inuu halkaas soo gaaro xeerkan maanta markaa waa la ansixiyay marka la ansixiyo waxa loo gudbinayaa madaxweynaha dekreeto ku soo xiray dekreetada madaxweynaha marka lagu soo xiro uu xeerkani noqonayaa mid hawl gala oo shaqadii looga baahnaa qabta haddaan wax yar ku faahfaahiyo shaqada uu xeerkani qaban doono oo deegaankeenan ka hirgelinayo waxa kamid ah sidii loogu dhowri lahaa dadka dambiyada ka gala deegaanka xeerkii qaban lahaa iyo wixii sharciyad ahaan lagu qaadi lahaa weeye madaxweynuhu markuu soo gudbiyo xeerkaas oo dekreetada ku soo xidho waxaa loo gudbinayaa hay-adaha sharci fulinta ee maxkamadaha iyo garsoorka kadibna qodob kasta oo kamidii wuxuu jawaab ka bixinayaa dambiyada laga galo deegaanka waxaa kamid ah xaalufinta in xaalufiyo dhulka dhirtii in la jaro oo dhirta qoyan inta la jaro loo isticmaalo dhuxul Jubbaland way mamnuucday in dhuxusha laga dhoofiyo deegaanada iyo dekedaha Jubbaland hoostaga iyada oo Jubbaland tixraacaysa oo fulinaysa shuruuc caalami ah oo qaramada midoobay ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya lafteedu qaadatay oo la isla gartay in ay tahay in mamnuuc ay ka tahay dhuxushu in laga dhoofiyo wadanka Soomaaliya qodobka koowaad ilaalinta dhirta qoyan oo loo isticmaalayo dhuxusha waxaad ogtahay inta dhoofta kaliya maaha ee gudaha yaa waxaa lagu isticmaalaa dhuxul fara badan oo dadkan hadda Soomaaliyeed ee magaalooyinka degan majority-goodu waxay isticmaalaan dhuxul oo cuntada ku karsadaan magaalada hadda Kismaayo oo kale markaad qiimayso dhuxusha maalintii la shito oo magaaladan ku baxda lambar aad iyo aad u fara badan weey laakiin waxa la ogol yahay dhuxusha localka ah ee baahida gudaha loo isticmaalayo in dhirta qalalan laga sameeyo iyada lafteeda waxa dadaal loogu jiraa sidii loo heli lahaa dhuxusha wixii lagu bedeli lahaa oo tamar ah oo dadku ay u isticmaali lahaayeen cunto karintii iyo waxyaabihii kale ee baahida bini'aadamku u baahnaa waxa kamid ah waxyaabaha la wado in la isticmaalo gaasku waa ka nadaafad badan yahay dhuxusha waana ka hawl yar yahay laakiin waxa dhici karta laakiin dadkii ma wada awoodi karo waa sax hadda waxa qorsheysan wada UNDP baan barnaamij la wadnaa hawsha ku saabsan 1,200 qoys in loo qaybiyo gaaska marka hore mashiinkii iyo gaaskii baa la siinaya laakiin hadhow lagu wadi maayo adigu gaaskii qofku inuu soo iibsado oo isagu wuxuu ku isticmaal lahaa soo qaataa
baa laga rabaa oo hadhowto isagaa iswadaya ogow dhuxusha lafteedu ma lacag yara laakiin waxay taa kaga fududahay de waxa tafaariiqda ah ee baahida qofku maalintii u baahan yahay baa number yar noqon karto kiiloogeedii waxaa laga yaabaa waxaa la gadaa inuu wax yar oo qofku markaa awoodi karo noqoto laakiin tan inaan kiilo la gadan karin ee laga rabo 10 litir ama 20 litir ama wax lamida ah oo tanag gaas ah oo qofku qaato markii marka barnaamijkaas dhibaato badan baa deegaankan ay u geysatay dhuxushaasi ilaa 1940 iyo ilaa 5tiina dhuxusha waa laga dhoofin jiray Jubbaland oo way socotay dawladihii Soomaaliya Soomaaliya baa joojiyay dhulkan geedaha ka bixi jiray ee xilliga dhuxusha loo dhoofiyay dhuxul ahaan ay ka dhamaaday galoolka kamid ah hadda maanta aad ugu tira yar Jubbaland ama la oran karo wax aan yar oo fuf ah oo hadda aan macna badan lahayn baa ka jira tii hadda u dambeysay oo muddadii burburka dhuxushii faraha badnayd ee dhulkan laga gooyay waxay sababtay geedo qiimo weyn ugu fadhiya Soomaalidu inay meesha ka baxaan oo qurucu kamid yahay oo kamid yahay hareeriga geedka la yiraahdo oo xooluhu geel waliba aad u daaqo si marka loo daba qabto wixii dhuxushii waa la joojiyay waxayna u baahan tahay ciidan ilaaliya joojinteedii si loo xaqiijiyo in hawshaasi sidii la rabay u fusho iyo ciidanku sharcigu adeegsan lahaa ciidanku hadduusan haysan sharciyadii wax ku qaban lahaa waxba ma qaban karo sidaa awgeed marka muxuu mamnuucayaa kow dhuxusha kow maxaa kale ku xiga xeerkan wuxuu mamnuucayaa dhuxusha wuxuu mamnuucayaa duur joogta in la ugaarsado oo hilib ahaan loo cuno oo loo ugaarsado wuxuu kaloo mamnuucayaa in laga ganacsado oo illegal trade la sameeyo oo ganacsi loo isticmaalo duur joogta oo la dhoofiyo wuxuu mamnuucayaa deegaamada Jubbaland in qof intuu dhul iska ooto oo xidho oo geedkiina wayanaana gooyo oo uga dhigo dhulkiina intuu iska xirto arradan uu qof qabsado oo yiraahdo xidmadan anaa leh iyadoo ujeedadu tahay inuu dhulka ku mulkiyo dhulkaas si sharci ah lagu mulkiyo waa fiican laakiin de seere qofku intuu iska ooto dhul hadii qof bay in ooto dhulkii wada lahaanshihi ba meesha ka baxaya xoolihiina dhibaata ugu sugan oo marka halka intuu qofku ooto uu reebto daaqi oo daaqi iyo cawski ku haro xooluhu oodii bay jiirayaan daaqi bay ka cunayaan kadibna waxa imanaya conflict ka dhalanaya iyo dagaal iyo inuu xoolahi xirto oo yiraahdo waxba iga cuneen xeerada aan lahaaba iga dhaceen halkaana khilaaf iyo dagaal iyo in dad iska hor yimaadaan ay keento taasna waa mamnuucaya waraha sidoo ogtahay biyaha qayba kamida ba environment-ka hoostaga qaybana waxay hoostagaan wasaaradda macdanta iyo biyaha waraha dhulkan hadda Jubbada hoose dhul xoolaha nugulka ah ku badan yihiin loo ku badan tahay marka dawladihii hore waxa jiray waxa la qorsheeyay 25 kilomitir baceel biyood oo boor hore ku yaalay si loodaas nugulka ah aan biyo u waayin waxa sidoo kale loo ogol yahay waraha 25 kilomitir kii war waa laga qodan karaa laakiin qofku markuu war rabo inuu qoto in uu wasaaradda deegaanka iyo degmada iyo maamulka la soo xiriiro loo aqoonsado goobtaasi inay tahay meel ku habboon oo laga qodan karo 25 kilomitir biyaha ugu yar u jiraan baa loo ba yana sharcigu ogol yahay oo taas uu mamnuucaya deegaanada aan si sharci lagu degin marka magaalo iyo deegaamo la rabo in la sameeyo waa in ay ku yimaadaan qorshe dawladeed laakiin haddii ay ku timaado in dadku ama qabiil loo qorshaysto in qabiil ahaan loo dego oo qabiilba meel dego ama kooxo ama shirkado ama iskaashatooyin ama wax kasta oo ah inay meel cusub sameeyaan oo deegaameeyaan waxa muhiim ah marka u horeysa wasaaradda deegaanku inay xaqiijiso halkaas meel la degi karo oo ku habboon inay tahay taas markii ogolaanshaha iyo dhulkaas in deegaan ku habboon yahay oo deegaan noqon karo la isla ogaado ba haddana waxa loo baahanayaa policy-ga wasaaradda arrimaha gudaha ee ah
degmooyinka iyo tuulooyinku iyo sida ay noqonayaan wasaaradda arrimaha gudaha oo maamul ahaan dee u maamusha deegaamada mas-uuliyiinta ama tuulo ha noqoto ama degmo ha noqoto ay hoos tagaan taana wuu mamnuucaya wax badan oo hadda conflictiga soomaalida ku dhasho oo deegaamadeena ka jiro oo dadku isku qabtaan oo maalin walba dacwo ka taagan tahay buu xeerkani mamnuucaya oo aan la ogolayn waxaa ka mid ah nadaafadda magaalada ama wasakhda sida loola tacaaliyo oo magaalo marka la joogo bini aadan badanna ku nool yahay waa inuu jiraa qorshe nadaafadda lagula tacaalayo oo ay ka wada qayb qaadanayaan wasaarado iyo degmo maamulada heer degmo ilaa heer tuulo waa inuu jiraa qashinkaa meel laysla ogyahay oo la geeyo lagu maareeyo oo waxa la yidhaahdo dumping site god inta loo qodo qashinkaa lagu guro si aan waxa ka dhalan kara qashinkaa meesha la isugu geeyey oo cudurraa ama dhibaato ah si loo maamulo oo loo maareeyo wuxuu mamnuucayaa deegaankan badda ee inagu xeeran baddeenna xeebta waad aragtay waa dhul dalxiiska iyo isticmaalka dadka soomaalidaba ku fiican waxay u baahan tahay nadaafad haddii laga dhigo badda meel no man's land ah oo qofkii qashin ama wasakh raba inuu iska fogeeyaba badda geeyo waxaa imaanaysa dhibaato xayawaanka ku jira baddana aan u geysano inaguna isu geysano waxyaabaha aad hadda la yaabka u leh waxaa ka mid ah badda dad baa ka shaqaysta waxaa laga soo saaraa cunto dadku ku nool yahay oo muhiima kalluunku sidaad og tahay waa hilibka ugu caafimaadka badan badda isagoo caafimaad qaba oo aynaan wax qarasha ku bixin wuu ka soo baxaa laakiin dadka soo saara badda markay biyaha ka soo faaruqaan meesha biyaha baddu ka noqonayaan oo aan nadaafadeed ficnayn baa lagu qalaa dhulkaa waliba la dhigaya waxaad arkaysaa iyadoo halkaa lagu qalayo oo meel ku habboon ayaan ahayn kawaan baa loo sameeyey meel lagu ganacsado oo lagu xiyo meeshii la gaarsiin maayo halkaasay ku qalayaan kalluumaysatadu markaasay haddana wasakhda wixii ka hadho oo hilibka oo baaqi noqda wastiga waxay ku celinayaan badda waxaa kaloo jira kawaanka hadda slaughter houseka Kismaayo ku yaala wuxuu wasakhda geeyaa badda ku celiyaa uuskii iyo dhiiggii iyo lafaha xoolaha ayaa la dhacay aan la isticmaalayo intaba badda la geliyaa kadibna waxaa soo raacaya libaax badeedka dhiigga iyo uuska iyo waxaa hadduu helo wuu soo raacaya wuxuu keenayaa marka khatar amni oo meelaha dhow oo xeebta qarkeeda ah oo dadku ku dabaashaan oo loo dalxiis tago oo lagu nasashada loo tago in uu bini aadanka ku dhibaateeyo oo waxyeello u geysto sidaad og tahay Kismaayo xeebaheeda kubadda lagu ciyaaraa gobolkan gobol sportiga aad qaali u ahaa marka iska dhalinyarada yar-yarka ah iyo raggii waaweynay hore u ciyaari jirayba maalinta khamiista iyo jimcaha badda la jooga xeebta la jooga eriyada ay ku ciyaarayaan ee kubadda ku ciyaarayaan waa in nadaafad u helaan haddii masaabiir lagu daadiyo ama qashin kale la geeyo uma suuroobayso iyagoo cagacad inay ku ordaan ama hadday doonaan kaba qabeen in kubad lagu ciyaaro kubad la eriyo oo ay fursad u helaan waa tahay wasiir aan dib kuugu celiyo midii dhirtii iyo midii ilaalinta deegaanka qofkii geed gooya xeerkan muxuu ku xukumayaa xeerka qodobadii dhirta marka la gooyo qofka ciqaabta u noqonayay iba hor yaalaan laakiin ciqaabta uu step kasta oo ka mid ah ama geed ha noqdo ama xaaluf ka badan ha geysto waxaa jirta ciqaab uu qofku yeelanayo oo ama xadhig noqon karto maxkamaduhu ay u adeegsanay u ixtiraacayaan ama ganaax noqon kara oo lagu ganaaxi karo qofka dhaqaale waana muhiim horta marka u horeysa shaqada environmentku marka xaqiiqda laga hadlo waa mas'uuliyad wadareed qof kasta oo Soomaaliya waajib saaran wax la oran karo dad dhowr qof ama koox baa u xil saaran oo iyaga kaliya laga sugayaa ay fulin karaan maaha haddii marka aan ciddii markaa u xil saaran oo shaqo looga dhigo ama ciidan ilaalada deegaanka ha noqdo ama wasaarad ha noqdo ama qolo kale ha noqdo ee ayaan gacan ka helin dadka shacabka ah ee deegaanka deegan ee Ilaahay ku galadaystay wax badan ma qabsan karaan
waana muhiim in deegaankeena la wada sidaad ogtahay jubbada hoose kaynta ugu weyn Soomaaliya baa ku taala Jubbaland laga soo bilaabo ilaa gobolka Gedo jubbada dhexe jubbada hoose kaymaha ugu caansan ee ugu qurux badan baa ku yaala haddii maanta inta diyaarad raacdo aad kor marto deegaankaas oo diyaaradda ku dul marto waxaa fiyuga ku soo baxaya wuxuu noqonayaa wax aan la heli karin oo dadka qaarkood ku murmaan Soomaaliya ma aha meesha webigaas hadda Jubba waxaana si wanaaga saddexda gobol ee Jubbaland ku taalaba inuu maro soo maro eriyadiisa iyo dhulka inta uu isaga xiriirka la leeyahayna de kaymihii baa ku yaala geed midhoodkii baa ku yaala ee dhulkii cultivation-ka ahaa ee laga beeranayay dadku manfaacadayeen baa ku yaala qof kasta marka mas'uuliyad saaran weyn la ilaaliyo okay dadku waxay isweydiinayaan marka hadda xeer iyo ilaalin deegaan iyo wax ka hadalo wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland iyo waliba dawlad goboleedka Jubbaland sidee bay sharcigan u fulin doontaa ugu fududaan doonaa wax looga qaban karaa arintaasi sidee bay kula tahay in loo qabanayo loo fulin doono aad ma haysantay waxa weeye su'aal fiican waxa jira waxay deegaanku wuxuu yeelanayaa ciidan ilaalada deegaanka leeyahay dawladdii hore ee Soomaaliya ugu jiray laan booliiska ka tirsan yahay hadda luglow meesha la tagtay marka laga daadega luglow laga sii daadegayo dhinacan bidixda guryaha ka qabanaya xarun dhisan oo guryo ku yaalaan ciidan halka waxa deganaa ciidanka ilaalinta deegaanka ama marka hadii la doono duurjoog la dhaho oo ugaadha si gaar ah ugu xil saarayeen waxay ugaadha si gaar ah ugu xil saarayeen waxa weeye marka ma jirin dagaalkan dhirta lagu hayo ee dhuxul laga dhigay ee lagu xaafin dhulka lagu baabiinaya ma jirin xilligii kacaanka oo kale ma jirin ciidankaasi waajibaad buuxa booliiskuna hoos tagaa hadeer ciidankaas ilaalinta deegaanka Jubbaland in loo dhiso qorshay ku jirta hadda wasaaradda barnaamijkan deegaanka waxay naga caawin doono gacan ka geysan doona hay'ado UN-ka iyo donors kale oo caalami ah waxyaabaha ay ogol yihiin waxa kamid ah ciidanka deegaanka oo hadda dhaqaale loo hayo hadda barnaamijkan dhuxusha joojintiisii Jubbaland joojisay qolooyinka UN-ka waxay lacag baa taala $5 million baa taala oo hadda waqti dhow waliba dhici doonta haddaan laga faa'iideysan waxyaabaha hadda la qorsheeyay ay ku talagelayaan waxa kamid ah in lacag milyan iyo googa degdeg hadda Jubbaland loo siiyo si loo establish gareeyo ciidankii ilaalinta deegaanka oo u xilsaaraa mas'uuliyadda marka ciidankaasi dhismo waxaa imanaysa mas'uuliyad khaasa laan u xilsaaran oo hay'adihii sharci fulintana kamid ah la shaqeyn doonta hay'adaha sharciga oo maxkamadihii iyo garsoorkii ah hawshana mas'uuliyadooda gaarka ah ay noqoto wayn marka budget iyo loo hagaajiyo agabkii iyo wixii ay ku hawlgali lahaayeen access-ka hadda aynu leenahay iyo dhulka hadda joojinta bahasha joojintada maraysa waxa weeye magaalooyinka iyo maamulku inta uu joogo in lagala tacaalo inaanay soo gelin hadday intaasi suura gasho oo ay intaasi qabsoontana waxaa imanaysa dhulka shishe ee hadda aanan inagu tegi karin dadkii ka soo goynayay inay suuqu waayaan oo suuq hadday keeni kar waayeen faraqaad waxaa ku jirta qorshe kale dad baa bahasha ka shaqeysanayo ku noolaa dad Soomaaliyeed waxaa hadda kalifay in dhirta sida loo jaro oo dhulka loo xaalfiyaan ma aha nacayb deegaanka loo qabo laakiin waxa ku kalifay dad waxa weeyaan nolol bay ka raadinayaan baahi baa keystay shaqalaan baa jirtay nolol baa loo doontay qoysas badan oo Soomaaliyeed baa laga yaabaa inay ku soo badbaadeen qolooyin ganacsataan waxa laga yaabaa oo wax markaa iska ganacsigoodu yaraa inay ganacsi iyo dhaqaale ku heleen oo dhismayaal iyo wax laga sameeyay beriga hore oo dhuxusha ay halkan dawladii hore ama xilligii Talyaaniga iyo marka laga hadlo waxa la yiraahdaa dhismayaasha hadda dhaadheer ee magaalada ku yaala ee beriga ay magaaladu dhisantay dhuxusha u soo wahay hadda tii dambe hadda deegaan intii hadda burburka lagu jirayna magaalada wax badan bay ku kordhisay oo ku dhismay laakiin hadda waxa loo baahan yahay in loo helo fursad kale oo dadkii shaqada qaban jiray ay wax kale loo bedelo
waxaan haynaa fursadaha aan hayno waxaa ka mid ah dadkii ka shaqayn jiray xoogooda maali jiray waxaa la abuurayaa dhir waxaa soo socda qorshayaal neersariyo in la sameeyo oo dhir la abuuro oo dhirayn dambe dib loo dhireeyo dhul badan oo hadda maanta dhiraynta u baahan dhirayntaas marka la dhiraynayo waxaa xoogooda laga faa'iideysanaya dadkii shalay awal goynayay inay iyagu dib u abuuraan dhaqaalana ay ku helaan nolol ku helaan waxaa kaloo jirta fursad kaloo ganacsiga qoladii ka ganacsanaya shirkadaha ahaa fursad kale iyagana in loogu bedelo oo ay ka ganacsan karaan oo qofka geedkii ka ganacsan jiray haddii la waayo xogaygii uu haystay inay ka baaba'aan maayo waa inuu meel kale oo wax kale uu kaga ganacsado oo uga soo bixi karaan inuu helo taas marka waxaan rabnaa iskaashatooyin in loo abuuro oo iskaashatooyinkaasi qaar badda ka shaqaystaan oo ay balay iyo dee wax soo saarka badda adeegsadaan oo isu diyaariyaan iskaashato ahaan qolooyin in beeraha ay adeegsadaan oo iskaashatooyin beereed noqdaan waxaan la yidhaho cash crobiska oo qudaarta oo kale shirkado ka shaqaysto oo cash crobisku waa lacag degdeg ah oo qofku intuu abuuro qudaartii haddana markiiba suuqa la geynayo suuqii lacag uga soo baxayso cerealka cuntada raashinka kale ee la cuno iyo midhahooda waa la abuuri karaa waxaa kaloo jira fursado ka bannaan dalxiiska oo dalxiiska Soomaaliya bay-ad ahaan deegaankeenu aad iyo aad buu ugu qurux badan yahay waxaa laga samayn karaa meelo dalxiiso aad indhaha usoo jeeda marka ganacsatadu inay dhinac qura eegto maaha dhinac walba inay eegto wey haddii hadda hoteelo 5 star ah ama kuwo aan 5 star ahayn temporary ah oo laakiin waqtiga jooga la jaan qaadaya meelaha qaarkood laga sameeyo waxaa imanaysaa inay fursad inay dhaqaalana ka helaan dadkana ay kalsooni geliso oo lagu soo hirto meeshii oo la yimaado iskaashatooyinka waxaa jiraya haddii alla idmo qolooyinkan beesha caalamka ee dadka caawiya waxay fursaday u hayaan waxa la yidhaaho public private partnership oo bulshada wax lagu tanaajiro waad aragtay in hay-ado lacag bixinayo oo dad ganacsato yaryar ah deymo yaryar ku taageeraya oo waxaynaya kuwa sidan oo kale isu diyaariya oo iskaashatooyin ah oo barnaamijka ku talagala hadday yimaadaanna waa la caawinayaa cid caawisaa la helayaa barnaamijka waxaan rabnaa inaan kala shaqeyno oo la kaashano guddiga maxaa la yidhaahdaa rugta ganacsiga iyo warshadaha oo dee ganacsatada badan ay ka diiwaan gashan tahay barnaamijkan hadda triple b-gaas waxyaabaha lagu taageerayo ganacsiga oo lagu horumarinayo ganacsiga yaryar ee localka ahna iyagu u xil saaran yihiin waxaa marka muhiima waxa weeye in la garto waxa aynu ilaashanaynaa waa nolosheenii dhulku hadduu dhirtu ka dhammaato roobka iyo naxariista ilahay waa ku yaraansa waxaa kaloo kacaya ciidan hadda ay degan iyo bacaadkan aad aragto in yaroo hadda meelaha qaar haddaad marto waxaad dareemaysaa in haddii uu dhulku xaaluf jiri lahaa ama dhirtu yaraan lahayd in bacaadkaasi meelo badan gaari lahaa laakiin haddii ay intaas dhirayni ka jirto oo ay kay noqoto roobkuna waa ku xasilayaa waxaana ka imanaya wax badan oo waxtar ah oo bini aadanka iyo xayawaanka kalaba intaba faa'iido ah waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka falanqaynta wararka kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo deegaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo nooga waramayay xeerkii maanta wasaaraddu ay horgeysay baarlamaanka ee baarlamaanku uu meel mariyay aad iyo aad baad mahadsan tahay sacaadatu wasiir sida wanaagsan oo waqtigaaga noogu soo hortayna waan kaaga mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay